أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo ramadaan. bishaan waxaanu soo qaadanaynay duruus ramadaaniye ah oo ramadaanka qaybihiisa markaasi si munaasab u ah aanu maaragtay u fiirinaynay oonu soo qaadanaynay. waxaanu soo gaarnay haatan darsigeennii 18aad ayaanu soo gaarnay. saa hore baa darsigeenna hore oo 17aad soo sheegnay. halkan waxaanu ka bilaabi doonaa waxyaabaha manhiyo canhuga ahoo ramadaan iyadoo lagu jira la iska reebay ayaanu soo qaadan doonaa oo waxa weeye haddana ramadaanka uu ku jabaayo. sidaan darsigeenna hore aakhirkiisa aanu ku sheegnay xadiiskii bilowga noo ahay oo markaasi wiqaacu ramadaan markaasi nin haweentiisi ku dhacay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiiyey. arrintaas ayaanu maaragtay qeyb ayaanu ugaga dhex jirnay. haddana ayadiiyaanu maaragtay hadda darsigeenaan ka bilaabaynaa. waxa weeye qaybaha kaleentoodoo ayaguna manhiyo canugaa la iska reebay ayagana isla darsigeenaan ayaa insha allahu tacaala ku qaadanaynaa. xadiiska marka abi hureyre laga wariyey ayaanu maaragtay soo qaadanayo nin ayaa nabiga calayhi salaatu salaam u yimid. ninkaas magaciisa iyana waanu soo sheegnay, acraabiyuu ahay, laakiin hadda waxaa weeye xukunkiisi cidkaas ayuu maaragtay ku fulayaa. ninkaas marka magaciisa waa soo qaadano salamata ibnu sakhar ama waxaa leeyahay salmaan ibnu sakharaa la dhihi jiray. ninkaas nabiga calayhi salaatu salaam ayuu u yimiday sida uu sheegay abu hureyra. kolkaas ayuu wuxuu dhahay: halagtu yaa rasuul allah, ilaahi rasuulkiisa waa halaagsamou dhahay. waxa weeye ficil oo naftayda sabab ugu ah inaan halaagsamo ayaan sameeyey. arrin dhibaato leh inay tahay ayuu u jeedaa, waa ictiraafsan yahay. addoonkuna sidiisaba dembigiisa haddau ictiraafo, ilaahay subxaanahu watacaala kafuur raxiim weeye. waxaa laga rabaa addoonku markuu ilaahay u soo noqonayo ictiraaf inuu la yimaado. haddou ictiraaf la yimaadane ilaahay raxmaddiisa waasicada ayuu helayaa. ilaahay baa u dhaafaaya oo waxa uu noqonayaa attaa'ibu min adembi kama laa demba lah. laakiin waxaa nasiib darro ah qof maaragtay dembi midka ugu xun gelaya, haddana waxba aan ictiraafsanayn ee inuu dembigi galaba ku faraxsan oo hadda mid kale sii raadinaya, ama wixii markaasi hore uu soo sameeyey ee dadka uga sheekaynaya ku qoslayo raalli ah, saan wax u dilay, saan wax u dhacay, saan wax u kufsaday ayuu weli mar walbo ku macaansanayaa. markii meelaha majaalista ahoo fadhi kudirrada la isugu yimaado, qofka sidaas dembiga laga cafi maayo, sababtoo ah shuruuddii towbada ayaa ka maqan. haddana waaba qof aan markaasi aan ka murugsanayn waxuu sameeyey. marka ninkan wuxuu dhahay: rasuulki ilaahayow waan halaagsamay. nabigu markaas wuxuu dhahay: wamaa ahlaka kow dhahay, war maxaa ku halaagay? markaasuu wuxuu yihi: waqactu imra'atii fii ramadaana, haweentayda ayaan bil ramadaan iyadoo la joogaan ku dhacay oon jimaac ugu tegey. saas ayuu dhahay. sidaa markuu dhahay macnaha maxaa io xugumhow ka wadaa? rasuulkeen wuxuu yihi calayhi salaatu salaam: hal tajidu maa tuctiqu raqabatan, ma heli karaysaa qof addoona oo raga aba dumara oo addoonnimo loo haysto waxaad ku xurayso xoolo ina aad dhiibtid, aad u iibisid, eed xuraataa ad tiraahdo, ma heli kartaa u dhah rasuulku. maxaa yeela kafaara murataba ayaa la yidhaha midaan. haddii shaygan la waayo ayaa midka kale la aadayaa. haddii kaas la waayo ayaa kaas 3 derajo waaye. kafaaradan waxaa leeyahay murataba ayaa la yidhaha. marka kafaaradan kafaaratu wiqaaci ramadaan kafaara murataba la yidhaha. ayadoon taas la weyn midda kale lama aadi karo. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam: ma helaysaa waxaad qoor aad ku xurayso qof addoonnimo lagu haysto addoona? ilaa waagaas addoomanku waa iska fara badnaayeen, addoomo badanaa jiri jiray. maxaa ilaha addoomanku waxyaabo hore oo dhaxal hore ku yimiday oo dadkii hore jaahiliyada ay haysan jireen, shareecaduna aysan markaasi ka fasakhin.
oo dhaqan loo haystay iyo waxay ahaayeen dad kaloo waxa weeye jihaadkii markii la galay oo gaaladii waxa weeye ilaa axkaam badana uu iska leeyahay dad markaasi waxa weeye addooman laga dhigtay ilaan haddii maaragtay dadkii la qabto rijaashi mooyaane oo muqaatiliinta ahayoo xugun iska leh haweenkii iyo markaasi caruurtii ayagu ka baqiyati lghaniimati weeyo markaasi waa addoomoobaayan kuwaas markaas saasaa addoomanku ay u tiro badnaa jireen haddaan se heda gaalo ina dad laga soo qabto cid addoonsaysa muslimiintii laguma arko nasiib dar hadda muslimiinta ayagaa la addoonsado haya waxaa arrintaas u keenayane manhajkii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka tageen marka waa u dhahay marka rasuulku calayhi salaatu salaam war waxaad naf ku xoraysa ma heli kartaa laa ayuu dhahay ma heli karow dhahay markaasuuna wuxuu dhahay fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni ma awoodaa 2 bilood oo xiriira inaad soonto ma awoodaa ilaa qur-aanka shahrayni mutataabicayni kafaarida oo dihaarkana saasay ahayd shahrayni mutataabicayni tanna lamid waaye mid kastoo kafaaro ah oo kafaaratulcudma ah shahrayni mutataabicayni maay haddii laga soo tago addoonkii la xureeyahay hadda xisan iyo sharcanaaba lagu waayaba maanta taas hadda maba laga hadlaayaba ee hadda nambarku wuxuu ka bilaabanayaa addoontaas waxuu ka bilaabanayaa soonkaasuu ka bilaabanayaa soonka qofkii awoodane waa inuu soonka soomaa waajibay ku tahay ee asoo soonkii awooda maya raashimaa iska dhiibayaa mukhayaro maahan kafaaradaanu mukhayaro lama yidhaahdo kafaarada mukhayarada waxaa weeye kafaarada la yidhaha markaasi oo kafaaratulyamiinka qofka hadduu wax ka dhaartay ee dhaarti uu buriyo kafaaradaasu kafaaro mukhayarahay noqonaysaa addoonumaba jirtaba marka 3 maalmoodoo la soomaayo iyo 10 miskiin oo la quud siinayo 10 koomboo badara ama 10 shood la siinaayo qofku khiyaara u leey midou doono samay karaa taasaa mukhayaro la yidhaah laakiin tan mukhayara ma aan muratabo weeye marka rasuulku calayhi salaatu salaam waxa uu dhahay derajadii labaad ma awoodaa ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam inaad xorays inaad soontaan dhihi lahay 2 bilood oo xiriira laa ayuu dhahay 2 bilood mutataabicayni shardi waaye qofku asagoo sooman haddii bishiio labaadoo sii dhammaaysa maalin ay ka fakato waxau soo waxba kama jiraan gadaalow ka soo bilaaba mutataabicaynidaas shardi waaye waa qofku inuu ka fiirsadaa weeye ee ay maalmaan soomaa kabacdina maalin kalen soomayaa saas ma la yeelaayo mutataabicayni waa naska qur-aanka weeye sidaa markii nabigu u dhahay qaala wuxuu yihi laa mayow dhahay xataa 2 biloodoo ma soomi karow dhah nabigu markaas wuxuu dhahay fahal tajidu maa tudcimu 60 miskiinan 60 miskiin waxaad markaas si aad ku quudisa ma helaysaa quudiskaana waa midkaa horuu soo maraynayo waxaa lagama wada markaasi quraac iyo qado iyo cashaa la siiyaa macnuhu maahan oo bisilaa badar bisilaa loo soo wacayo markaasuu cunaya raashin bisilow cunaya ma ahan macnuhu saas maaha ee waxaa la rabaa raashinkii kii lagu dhiibi jiray fitrada insha allahu tacaala og tegi doonaahe asagoo sidaas ayaa la rabaa 60 koombo ayaa la beegaya oo koombada madaalka ah waxaa waaye maaragtay 25 suus waaye maxaa yeelay suuski waa 4 amdaad waaye suuski waxaa waaye 4 koombo waaye marka waxaa la rabaa 60 koombo ayaa la siinaya hal qofna la siimaayo jamca 60 fardi waaye haddaad markaasi dhowr qofood amase 2 qof isku siisa ma kaa ansaxayso maxaa yeele waxaa la raacaya naska qur-aankaa raacaya 60 miskiina wey ayada laftirkeeda saas inay ahaataa loo baahan yahay marka ma heli kartaa u dhah rasuulku calayhi salaatu salaam 60 waxaad ku quudiso masaakiina laa ayuu dhahay haddana ma heli karow dhah hadda meeshaas meel looga sikada ma laha shibow ka dhah rasuulku calayhi salaatu salaam waa ka aamusay suma jalasa dabeedna ninkii waa fadhiistay waa iska fadhiyaa marka de wax kaloo meel kaloo loo dhaqaajiya maloo derbigo ku tegey fautiya nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ayuu dhah abu hureyra nabiga ayaa loo keenay bicaraqin fiihi tamrun waxaa loo keenay nabiga alay dambiil ama calaal ayaa loo keenay rasuulka calayhi salaatu salaam oo timiro ay ku jirto
maaragtay caraqaas dembiilkaas amase calaalka waagii hore calaalaa dhihi jiray baasha laga falkiyo oo laga sameeyo maaragtay timirta caleemankeeda ayaa laga falki jiray waagii horeba timirta waa lagu keeni jiray marka kaasaa loo keeno oo timiro ku jirta ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay waxaa lagu waxaa weye markaas qufa waa la dhahaa maktal waa la yidhaha zambiil waa la dhahaa zambiilka laftikiisa soomaalida zambiil waa yaqa dambiila iska dhaha laakiin za markay akhriyaan saxay u noqonaysaa kaasaa la yidhaha markaas khuusu nakliyaa laga sameeyaa waxau qaadaa markaasi 15 suusow qaadaa suuskana waxaa weeye 4 mudmadaasaan haddaan sheegaynay marka 60 miskiinna waxa loo dalbaya kaas weye likulli miskiinin muddun waaye miskiin kastaba hal koon baa la siinayaa waana weeye wasanka xaggiisana rodol iyo maaragtay rodol suluskiis waaye rodol suluskiis waaye ninkii markii nabiga calayhi salaatu salaam loo keenay caraqaas dembiishaas oo markaasi timirtu ay ku jirto waxau dhaha rasuulku alayh tasadaq bi haada ayuu dhaha rasuulku midkaan sadaqaysow dhahay dembiilka kan amba calaalkan timirta ku jirta sadaqayso ninkii marka waxaa yaham noqotay asagaaba haddana wixii maaragtay la siiyey oo sadaqada loo siiyey ayuu sii hunguriyeyha ayadoo asagii waxaa weeye kafaarada ay ku jirto ayaa haddana bani aadamku waa iska nooc ah waa hunguri ka sii galay markaas timirtii oo 15 suuseed ama maaragtay 60 koombaa heeday ayaa asagii hunguri ka sii galay oo ninku waxau ahay nin faqiira dadka badowda ahuna badanaa waxay isaga badan yihiin fuqaray u badan yihiin markaasuu wuxuu dhahay acalaa afqara minaa yaa rasuulallaahi ou dhahay annaga wax naga dhibaato badan oo naga faqiirsan miyaa jira oo wax la siihayow dhah wi asaga in isaga maaragtay in loogaga bixiyo la rabay oo haddana inuu sii qaato u doonaya dadka dabiicadaka damacaa la abuuray war adigaaba hadda waxaa weeye dhibaata ay ku haysaaho ramadaan markaasi haweentaadi ku dhacay haddana intaas awoodi waaye wixii laguu sadaqaysama wax isaga bixisid intaas in laga yihaahay aheeday rasuulkeenu waa naxariis badnay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay acalaa afqara minaa yaa rasuulallaah annaga wax nooga dhibaato badan miyaa jira annagaaba u baahanow dhah fa wallaahi maa beyna laabatayhaw dhahay magaaladan madiino aan joogno dhinacyaasheeda ma ahanow dhahay ahlu beytin axwaja ilayhi minaa ahlu beyt ma joogo dhahay reer annaga nooga dhibaato badan ee maaragtay dembiilka kan timirta ku jirta cid annaga nooga dhibaato badan maanta lama arkow dhah saasou dhah ahlu beytin axwaja ilayhi minaa u dhah rasuulkeena de iska naxariis badnaay falaxika nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa ku qoslay calayhi salaatu wasalaam xataa badad anyaabuhu ilaa nabiga calayhi salatu wasalaam miciyadiisa ay markaasi ka muuqdaan qosolkiisi oo tabasubkaay ayuu nabigu alay dhoosha ou ka caseeyey macnaha wuxuu la yaabay rasuulku calayhi salatu wasalaam ninkan xaaladiisa uu la yaaban yahay macnaha wuxuu ka oda wallaahi yaa rasuulallahi laysa fi lmadiinati qowmun axwaja ilayhi mina nabigu waa ku qosla markaas waa la yaaba markaas marka sidaas markuu dhahay oo uu saas leeyahay nabiguna ku qoslay suma qaala rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam idhab fa adcimhu ahlaka la tagow dhahay adugu iyo ahalkaaga quudi ou dhahay idhab fa adcimhu ahlaka adigu waxa weeye la tag oo ahalkaaga quudi ayuu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam maxaa yeele adiga ayaa quud u baahan waxau ka wadahay rasuulku calayhi salam dhowr arrimoodaa xadiiskan lagu ta'wiilshaa oo meesha waxaa imaanaysa haddii hadda ninkan la yidhi adigu qaado ee ahalkaaga quudi hadda kafaaradii ma ku jirtaa mase waxaa weeye waa ay ka baxday taas waxaa weeye aimadu wax badanay ka hadleen waa la isku khilaafay laakiin sida raajixa waxaa la leeyahay kafaaradii waa ay ka baxday ilaa xadiiska nabigu calayhi salatu wasalaam ma uusan sii dhihin walkafaaratu calaykana ma dhihin rasuulku calayhi salatu wasalaam o de kafaaradii adaa lagaa doonayana lama dhihin markaasaa waxaa la yidhi ninkan kafaaradii waa ay ka baxday
laakiin waxaa weeye khaasiyatun weye markaasi calayhi asagay khaas ku taha layidhi oo cid kaloo hadda maanta jirta in markaasi wixii kafaarada ay ku bixi laheeday ayadu ina cunto kafaara uga bixi mayso taas horta marka maadaama dhibaata ay iska haysay rasuulkeena naxariis badan yahay rasuulkeena alayhi salaam isaga ayuu khaas uga dhigayo adigu iyo ahalkaagu iska cuna saasaana kafaarada idinkaga baxday saasaa loo badan yahay sida markaasi waxaa weeye fadliga ilaahay wascigiisa iyo naxariista rasuulka alayhi salatu wasalaam lagu yaqaano taasay aheedaa layidhi oo macnaha alaana liidraarika ila alquuti adigu hadda iska cuna idinkaa quud u baahane wa cinda alyasaari tajibu calayka alkafaara taasna dadaa ku fasiro waxaa la leeyaha layidhi hadda idinkaa waqtigaas dhibaata idin haysaa cuna laakiin kafaaradii waa lagaa rabaane saasna waa loola jeedaa saas weliba jamhuur badanaa qabta ama aday khaas kugu tahay ama sawaaba kaa dhacdayo kafaaro lagaa dooni maayo maadaama nin mucsira aad tahay saas waxaa qaba inkastoo loo badnayn in la yidhaahdo ciisa ibnu dinaar oo maalikiyada qowlulqadiim oo imaamu shaafici xataa saasou qabaa laakiin sida hadda culammadu ay u badan yihiin waxay leeyihiin ninkaas khaasaa looga dhigay maaragtaya saasaana kafaarad ugaga baxday laakiin cid kaleentood markaasi oo sidaas kafaara ugaga baxaysa ma jirto jamhuur badanna waxay yidhaahdeen maya kafaara kama bixine maadaama hadda adiga dhibaata ay ku hayso adaaba dhibaataysane ahalkaaga iyo adigu cuna kafaaradina waa lagaa doonayaho kafaaradii meesheediiay taagan tahay aa laga wadaana waa layidhi marka taas waxaa weeye sidaasaan ugaga haraynaa marka in lays ilaaliyo ayaa loo baahan yahay bisha ramadaan lays ilaaliyo ayaa loo baahan yahay haddii wax dhacaanna arrintu sidaasay noqonaysaaho kafaaradii oo wiqaacu ramadaan waxaa loo marayaa heerarkaas ayaa loo marayaa waxaanu marka soo qaadanaynaa waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid a in wax la cuno waxna la cabo cunitaanka iyo cabitaanka aayadihii aanu soo mari jirna ama ku soo qaadanay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri ثuma atimu siyaama ila leyli waa towra ilaahi subxaanaه wa tacaala waxaa ka mid oo soonka jebinaya alqay-u camdan in mantaga kas laysaga keeno mantaga haddii ilaahay kaa keeno oo adiga maaragtay ou kaa qaalib noqdo sida aan soo qaada doono adoon ismantajin ayaa jira ku qabatay ama cuduraa kugu dhacay lalabo iyo waxyaaba badanaa ku soo dhaafay markaasaad mantagtay waana sooman tahay waad ka luqluqanaysaa soonkaagina waa kuu jiraa soona qaadaymaysid waa wada haysaa soonkaaga laakiin qofku hadduu farta isgeliyo ismantajiyo ama waxau isku bantajiyo ou sameeyo waxaa weeye markaasi qadaa laga doonaya waana qof dimbaabo noqonayaa dembiyaa korkiisa hadda wax kaloo u raacaya ma leh laakiin waa inuu soo qadlaya waajib ay ku tahay maalintaas inta ka dhimana inuu soomaa waajib ku ah maalintaas inta ka dhimana waa soomaya waana soo qalaynaya wa calayhi dembu dembina korkiisa waaye hadduu waxaa weeye asagu markaasi kas isaga keeno mantaga amase mantag kaliya ma ahane asagaa si kas ahoo ulakaca ayuu soonka u jebinayaa si ulakaca ayuu soonkiisu jebinayaa arrimahaas hadda waxaan soo qaadanaynaa axaadiis maxaa yeelay waciid soo arooray ayaa jira qofku asagoo saa'ima si markaasi aan cudurdaar lahaynin haddii waxaa weeye oo wax u cuno abu hurayra xadiis laga wariyaa wuxuu ahay ou nabiga ka wariyey rasuulkeen wuxuu yuri alayh الsalatu wasalaam man afdara yooma min ramadaana fii gayri ruksatin rakhasaha allaahu lahu lam yaqdi canhu siyaamu dahri wa in saamahu bal u fiirsa xadiiskaas dad waxaa jira markaasi ayagoon waxba aan ahay markaasi iska afura ayaa jira hadda waxa weeye maalintaas ka tagtay weligiis hadduu soomo maalintaas ajirka ka lumay adduunyada intuu ku nool yahay hadduu soomo maalintaas soo xasili kari maayo laakiin xagga xukunkay waxay ka tahay in maalintaas inuu soo qaleeya laga doonayo rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man afdara yooman maalin qofki afura oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah fii gayri ruksatin rukso asagoon haysanin rakhasaha allaahu lahu ilaahay u ruqseeyey masalan ba waa tii aan soo maraynayo
qofkii mariilka ahay, qofkii musaafirka ahay, naagti markaasi xaa'idada ahayd, naagti maaragtay nifaaska oo ilmaha dhashay, naagti ilmaha nuujinaysay, tii markaasi xaamilada aheeday, waxaasoo dhan ma ahan. fii gayri ruksatin rakhasaha allaahu, asagoon haysan rukso ilaahay u rukseeyey inuu afuro, lam yaqdi canhu siyaamu dahri ow rasuulku, soonkaas kama gudaayo zaminka dhammaantiisou soomo. lam yaqdi canhu siyaamu dahri, daharkan waxaa laga wadaa markaasi zaminka dhammaantiisa ila alabad. wa in saamow haba soomo, maalintaas ka fakato saas ku fakiyey oo cudurdaar la-aanta ah, weligeed wax u soo gudaya, marka ajirkii maalintaas ka teg weligiis ku soo noqon maayo. macnaha waxaa weeye qofka afura fii yowmin min ramadaani bigayri cudrin sharciyin, cudur sharci asagoo nasaada soo sheegay sida marar iyo safar, haddana waxaa weeye caalim ku ah inay xaaraan tahay oo caamida, sawowga weyn ayaa ka tegaya oo una halooleynin, zaminka dhammaantiis baa soomo. arrintaan marka waxaa weeye waa baraarujin laysku baraarujinaayo, soonka ajirkiisu aad iyo aad wax weyn yahay. maxaa yeele maalintii kas loo afuray, si kasta oo intuu qofku nool yahay hadduu soomane ajirkaas usoo laaban maayo. marka waxaa weeye qadihii laakiin haddau maalin soo qaleysan huruusheen waa ka dhacay, wax kafaaran korkiisa maa, jamhuurtu saasay qabaan. laakiin imaamu maalik iyo abu xaniifa waxay leeyihin qofkii maalin afura soo caamida oo caalim ku ah, qadaa laga doonaya iyo kafaaro, oo waxay ka dhigan tahay asagoo markaasi ku afuray jimaac ku afuray. waxaa ujeedaa hadda laftirkeeda waxaa weeye saasay leeyihin aimadaas. imaamu maalik laba madhaboodaa qabta xataa in markaasi kafaaro laga doonaayo, laakiin imaamu axmed iyo markaasi imaamuna ashaafici ma qabaan. waa yahay marka ramadaankii oo markaasi rukso la-aanteed la afuro, waxa ka imaahaya waa arrintaas aad iyo aad u dhibaatada badan ayaa ka imaahaysa. waa in la iska ilaaliyaa marka. xadiiskaas waxaa weye umahaadka intaan imaam muslim ahayn xadiis saxiixa waaye. waxaan soo qaadaynaa xadiis kaloo abu hureyre laga wariye oo nabiga ka wariyay alayh salatu salaam. rasuulkeenu wuxuu dhahay, man nasiya wa huwa saa'imun faakala ow shariba falyutima sawmahu fainamaa adcamahu llaahu wasaqaahu. masalan ba hadda soonkan la jebinaayo oo la iska reebay, ruux ayaa waxaa weeye soonkii ka buray, wuxuuna ugaga buray nisyaan ayuu wax u sameeyey. masalan ba jimaaca xataa haddii nisyaan loo sameeyo qofka soonku kama jebaayo, kafaarana laga dooni maayo. cunidda iyo cabitaanka haddii nisyaan loo sameeyo qofkii soonkii ka jebi maayo, iyo qay-i mantagi soonkii kama jebaayo. xadiiskan rasuulku wuxuu leeyahy alayh salatu salaam, man nasiya qofkii halmaama wa huwa saa'imun isagoo sooman, soonkii buu halmaamay, fa akala waa cunay, ow shariba amba waa cabay amba waa jimaacay, falyutima sawmahu rasuulku soonkiisa ha iska dhammaystirto, ha taam yeelo soomkiisa. fainamaa adcamahu llaahu wasaqaahu, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa quudiyey, ilaahayaana waraabiye. waa qof ilaahay subxaanahu watacaala inuu quudiyo alla uu u qadiray oo ilaahay u waraabiyey. macnaha waxaa weeye qofkii wax cuna waxna caba asagoo naasiya, waxaa weeye markaasi ma afuraayo, bal soonkiisa u xiriirsanayaa, soonkiisa baa ku ahaan wax qallaa korkiisa maahan, kafaaro laga dooni maayo. xadiis ibnu xibbaan weriye xaakimaha daliil ahoo, man afdara fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa caleyhi walaa kafaarata. rasuulkaa waxau dhahay alayh salatu salaam, qofkii afura bisha ramadaan asagoo halmaansan, wax qadaana laga dooni maayo, wax kafaara laga dooni maayo. jamhuurta salaf iyo khalaf saasay qabaan. laakiin imaamu maalik wuxuu leeyahay qofkii afura asagoo naasiya soonkiisi waajibayaa, walazimahu lqadaa, qadana waa ku laasimaysaa u leeyahy. laakiin taas looma badna, taas looma badna weeye. maxaa yeele rasuulku alayh salaatu salaam soon waxau dhahay rasuulku aley falyutima sawmahu u dhah, soonkiisa ha dhammaystirta u dhahay, fainamaa adcamahu llah wasaqaahu uu ku diray rasuulku. lafdi imaamu tirmidi uu leeyahay wuxuu ahay, man akala ow shariba naasiyan falaa yufdir. qofkii wax cuna waxna caba asoo halmaansan yousan afurin, fainamaa huwa risqun rasaqahu llaahu, waxaase waxaa weeye risqi ilaahay subxaanahu watacaala uu ku arsuqay waaye, soonkiisa yousan iska furin, waa u jiraa soonkiisii.
saasaa loola jeedaa. marka waxaa la rabaa in soonka la ilaaliyo. hadday arrintaasu ay dhacdana ilaahay waa naxariis badan yahay, inaan la isdhihin maaragtay soonkaaga waa kaa jabaye horay wax usii cun inaan la isdhihin. masalan ba hadda mantagu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soonka jebiya haddii camdi laysaga keeno. haddaan laysaga keenina soonka ku jebi maayo. xadiis abu hureyre laga wariyey ayaa sidaas ahayo asxaabu sunan ay leeyihiin, xaakimna uu wariyey oo uu saxiix yahay kitaabkiisa musadraga la yidhaah. abu hureyre waxaa lagu nabiga ka wariyey waxau rasuulku man daracahu lqay-yow dhah, mantagu qofka uu ka qaalib noqdo wax mantag uu soo dhowdo, wa huwa saa'imun isagoo sooman, falaysa calayhi qadaa'un, qalla korkiisa ma aha. waxa laga doonaya soonkiisana waa iska sii wadanaya. hase yeeshee wa in istaqaa u dhah rasuulku, haddou asagu mantaga iska raadiyo ismantajiyo, falyaqdi ha soo qaleeyo, qado keliyaha laga doonaya. laakiin sawowga oo hore usoo maraynay waa qof marka soonkiisa iska jabiyey asagoo wax cudura aan lahayn. adduunka intuu ku nool yaho dha haddou soomana maalintaa usoo laabamaysa ajirkeedii. laakiin qallaha waa laga doonayaaho qallaa laga rabaa. wa in istaqaa'a falyaqdi u dhah rasuulku, haddou ismantajiya ha soo qaleeyo. riwaayad kale waxay aheeday waman istaqaa'a camdan, qofkii ismantajiya si kas ah oo ula kaca falyaqdi ha soo qaleeyo. saas ayaa marka waxa weeye haddii la mantago adigoo waxba aana u qasdayninoo qalabo ay aheedayoo kaa qaalib noqday, soonkii kaa jebi maayo. dad badanaa ku dhahay waa mantagaye haddee soonkii ma iga jabay, soonkii kama jibin. hadduu ismantajiyo marka soonku ka jebaayo weeye, kaasna waxaa ka ratimaysa kafaaro ayaa ka imaahaysa. marka waxyaabihii markaasi soonku ku jabaayey iyo waxyaabihii markaasi waxa weeye ka ratimayey maaragtay darsigeena 18aad intaas ayaanu ku qaadanay. haddana darsigeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.